walaasha xun waxay qabatay maqas waxayna si ula kac ah u jarjartay dharkii aan qalbigayga oo dhan ku naqshadeeyey. laakiin waxa aysan filayn waxay ahayd inaan wax walba arkayay. si aan haweenaydan xun u ceebeeyo waxaan go'aansaday inaan la ciyaaro qorshaheeda kadib waxaan ilka qarsaday eoga fadhiyey dhegaystayaasha dhexdiisa anigoo u muujinaya in wax walba gacantayda ku jiraan. wax yar kadib waxaa la gaaray wakhtigaygii aan soo bandhigi lahaa shaqadayda. markii martigeliyuhu ka qaaday maro cas garsoorayaashii oo dhan way yaabeen qofna ma fidqo aad u qurux badan si ula kac ah loogu burburiyo sida qashin. eegu uu ka walwalsanaa inaanan xalin karin dhibaatada. wuxuu u sheegay kaaliyihiisa inuu keeno xal kale laakiin anigu waan deganaa walaashay aad bay ugu faraxsaneed inay aragto aniga oo la ceebeeyo. martigeliyuhu wuu iga naxay wuxuuna i weydiiyey haddii aan haysto dhar kale oo aan soo bandhigo. si fudud ayaan madaxa u ruxay markii uu martigeliyuhu ku sigtay inuu isaaro tartanka si degdeg ah ayaan u idhi waxaan doonayaa inaan isla goobta ku hagaajiyo dharka. dadkii oo dhan way yaabeen. qof walba wuxuu aaminsanaa in dharku gebi ahaanba burburay martigeliyuhu uu jahwareeray ilaa eegu istaagay oo oggolaaday codsigayga. isla markiiba walaashay way ka hor timid iyadoo sheegtay inaan jebinayo shuruucda tartanka ayna cadaalad darro ku tahay tartamayaasha kale. waxay sidoo kale tiri hagaajinta dharku wakhti dheer ayay qaadan doontaa dadkuna ma sugi karaan dadkii ayaa isla dhex maray hadallo. kadibna waxay sii waday iyadoo igu eedaysay inaan isticmaalayo xiriirka aan la leeyahay eoga islamarkaana uu i eexanayo taasoo dhaawici karta sumcadda tartanka laakiin lama filaan mid ka mid ah garsoorayaasha aad loo ixtiraamo ayaa hadlay. wuxuu yidhi wuxuu arkay naqshadahayga wuxuuna si buuxda u aqoonsan yahay kartidayda. sidaas darteed wuxuu diyaar u yahay inuu isiiyo fursad kale si aan u hagaajiyo dharka halkaas qaar ayaa weli shaki qabay iyagoo leh walaashay wax yar bay sax tahay sababtoo ah tolidda waxay u baahan tahay xirfad feejignaan iyo la qabsasho waana tartan dhab ah oo leh sharciyo aniguna si degan ayaan u idhi tartamayaasha mid walba wuxuu lahaa 4-5 daqiiqo uu ku soo bandhigo shaqadiisa anigana weli waxaan haystaa nus saac waxaanan ku hagaajin doonaa dharka 3 daqiiqo gudahood qofba qoslay oo yidhi waa wax aan macquul ahayn laakiin garsoorayaashu way dhoola caddeeyeen waxayna sheegeen inay qadarinayaan geesinimadayda iyo kartidayda ayna rajaynayaan inaan yaab ku sameeyo qof walba. walaashay waxay ku qaylisay ma waalatay xitaa qofka qashinka ururiya ma qaadanayo dharkan burburay adiguna waxaad leedahay waad hagaajin kartaa nus saac gudaheed. haddii aadan rumaysanayn aan sharad galno ayaan idhi. sharad ah inaan gebi ahaanba bedeli karo dharkan 3 daqiiqo gudahood oo aan dib ugu soo celin karo quruxdiisii hore dad qaar waxay yidhaahdeen tani waa riyo keliya ma suurtagal ah inaad samayso dhar cusub wakhtiis iska daa hagaajintiisa. laakiin waan ku adkaystay inaan samayn doono sidaan sheegay markaas ayaan weydiiyey haddii ay ku dhiiran karto inay ila gasho sharad. walaashay si degdeg ah ayay u oggolaatay iyadoo leh eegu keliya iga ilaalinayo ceeb. isla markaana anigu wax aan ku sharad galo ma hayo